madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa waxa uu dalka Uganda uu ku soo rogay bandow iyadoo aan weli laga helin wadankaasi kiiskii ugu horeeyay cudurka coronavirus si looga hortago ayuu madaxweynuhu bandow u saaray wadankaasi. Haddaba waxa qadka teleefanka magaalada Kampala si toos ah ugu jira gudoomiyaha ardayda qaranka Soomaaliyeed ee wadanka Uganda Cabdiqaadir Cumar Cabdulle Fiidka. Gudoomiye waxaad faahfaahin naga siisaa bandowgan maanta lagu soo rogay guud ahaan wadanka Uganda. أدلو ما سنتهاي عبد الله هذه دمان بهذا التلفزيون كسومالي كيبل شلي هاد مركي مدحوينها دلكاني يوغندا يويري موسيفني ومركاسي asigoo laga wada warsugayay uu soo saaray in markaasi wadanka xaaladan oo markaasi doorbideen inay geliyaan oo ah muddo 3 cisho ah oo markaasi madaxweynuhu amray in la xiro guud ahaan goobaha waxbarashada sida iskuulada jaamacadaha iyo goobaha kale ee markaasi dadku isugu yimaadaan ha noqoto meelaha lagu cibaadeysto sida masaajidada dadka muslimiinta ah isugu yimaadaan iyo meelaha kale ee markaasi iyaguna kaniisadaha oo ay dadka Kirishtaanka ah markaasi ku cibaadaystaan. Marka goobahaas oo dhan ayuu madaxweynuhu amray wuxuuna sharcigu dhaqan galayay maanta 12kii wixii ka dambeeyay. Marka hadda xilligan aan kula hadlayo sidaas ayuu markaasi xaaladda dalka waqtigii uu qabtay madaxweynuhu aan ka soo gudubnay. marka guud ahaan hadda waxa laga dareemayaa magaalada dadku in isku socodku uu sii yaraanayo. marka ma Kampala kaliya aha oo sharcigan uu ka hirgalay mise magaalooyinka qaar laftigooda waa wada gaaray oo wadanka dhan waay. Abdullahi wadankan uu wada gaaray xaaladda sababtoo ah kaliya Uganda Kampala ma ahan oo magaalooyinka waaweyn hadda oo jaamacadaha waaweyn ay ku yaalaan sida Embakara iyo Imbali oo kaleento waa uu gaaray guud ahaan jaamacadihii iyo marka aad u fiiriso sharcigu wuxuu noqday mid markaasi guud ahaan dalka oo hogaamsamay inkastoo xitaa ay jiraan arday badan oo Soomaaliyeed oo gobolada dalka ku maqan oo jaamacadaha waaweyn gobolada dalka ku yaala markaasi wax ku bartaan oo iyaguna la xiriiray waxay noo sheegeen in xagga waxbarashadii ay kala siman yihiin caasimadda oo la hakiyay. marka guud ahaan dalka ayuu xaaladan madaxweynuhu sheegay inuu galayo hadii ay noqoto gobolada dalka iyo caasimadda intuba. markaad fiiriso maalinimadii shalay ayuu ku dhawaaqay madaxweynuhu maantana waa hirgashay ma jiray baraarug horay oo dadku ay qabeen in wadanka lagu soo rogayo bandow ah? Abdullahi maalin laba maalin ka hor aad iyo aad ayaa loo hadalhayay oo madaxweynuhu khudbadiisa uu sii shaaciyay maadaama shalay 5tii galabnimo xilliga Geeska Afrika ay ahayd waqtiga madaxweynuhu uu markaas khudbada jeediyay waa laga wada warsugayay xitaa dadka waxaa mooday in ay sii ogaayeen muddada 30 cisho ah oo horay markaad social media fiiriso kale la sii hadalhayay. marka madaxweynuhu 30 cisho ayuu dalka geliyay iyadoo ma jiraan wax kaysa ama la diiwaan geliyay ama caabuqi uu gudaha dalkani guud ahaan Uganda uu soo gaaray ma jiraan laakiin waxa moodaa si taxadar in 30 cisho loo geliyay xaaladaas markaasi in isku socodka iyo goobaha waxbarashada markaasi la hakiyo oo 30 cisho la fasaxo. marka waxaad moodaa Cabdullahi in sharciga hadda loo hogaamsamo meel walba uu ka dhaqan galay isku socodkii yaraaday waa laga dareemayaa saameynta markaasi xagga waxbarashada goobihii imeelihii la sugu imaan jirayba oo markaasi la amray inaana la sugu imaan. maadaama tahay gudoomiyihii ardayda Soomaaliyeed ee qaranka ee dalka Uganda tahay arday badan oo Soomaaliyeedna ay ku nool yihiin ama waxay ka bartaan gobolada kala duwan ee dalka Uganda ma jiraan iska warqab dhexdiina oo ku saabsan arintan ku soo cusboonaatay wadanka Uganda? Abdullahi aad iyo aad ardayda inta badan way iska warhayaan inkastoo magaalada Kampala guud ahaanteeda meelo badan ardadu ay ka degan yihiin haddana guud ahaan ardadu waa kuwa iska warhaya si kastoo ay noqoto hadii ay noqon lahayd hogaamada ururada ardayda ama ardaydii naftirkooda kulli waa la iska wada warhaya xaaladana mid markaasi fariin looga sii warhayay ayay ahayd. waxbarashadii dhan ayaa markaasi la fasaxay oo iyadoo xilligan xitaa ay ahayd waqti ardadu ay isku diyaarinayeen imtixaanaadka in ay markaasi u fariistaan imtixaanka semesterka markaasi looga gudbo. marka ardadu runtii way iska warhayaan waxayna si dhow ula socdaan
talooyinka iyo waxyaabaha wax qoolka ah ee ka soo baxaya hay'adaha caafimaadka iyo wasaaradaha markaasi caafimaadka iyadoo markaasina runtii ardadu inta badan sharciyadaasi waxyaabahaas aan ku dhiirigelinna in markaasi ay sameeyaan oo feejignaanta ay markaasi dhinacooda iyaguna ka qabaan